بسم الله والحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. الحمد لله رب العالمين. عبد الله جزاه الله خيرا. الشيخ يهوري يا فضل أيام العشر هو أول من ذي الحجة كهالي حديث ابن عباس noo fasiray khayr alla siiyo. awalan dad kale ayaan rabaa inaan la wadaago kelmadan kooban, sidaa darteed markaan hal idin qaato luqadda insha allahu tacaala. tobanka ugu horeysa bisha carafo sheekha hortay ka hadlay fadaaisheeda jazaa allahu khayran. ana inta ilaahay xasuusiyo subxaanahu watacaala inaan wax yarkeena rabaa naftiin baan ku xasuusiyo. ilaahay subxana wataala wuxuu ku dhaartay fajirka. ilaahay subxaana watacaala wax uu doono ku dhaaranaya, facaalun limaa yuriid waay. annaga laakiin dadka muslimiinta asmaada alla ilaahay subxana wataala asmaadiis iyo sifaadkiis waxaan ahayn inay ku dhaartaan uma banaana. allah kacbada sameeyey, allah dhulka cirka taagay, dhulka fidiyey waa ku dhaaran kartaa, sifaadkiis waay. asmaadiis sidoo kale waa ku dhaaran kartaa, laakiin wax kale inaad ku dhaarato kuma banaan hadaa musan tahay. marka ilaahi subxana wataala wuxuu ku dhaartay walfajri walayaalin cashrin, maalmo 10 ah. maalmaha bisha carafa 10 ugu horeyso waay. maalmahaas akthar culamaa siday qabaan, culamadu waxay yidhahdaan maalin oo qorax soo baxdo 10ka maalmood ugu fadli badan, habeenna 10ka ramadaan ugu dambeysa habeenada allah abuuray ugu fadli badan. ashhur awaakhir min ramadaan ugu fadli badan habeen markii la yidhahdo. maalin markii la yidhahdana ashhur awaail min dilxija ugu fadli badan. ayib, xadiidka nabi alai slat slam ibn cabaas hadda sheekh noo sheegay wuxuu leey nabi alai slat salaam maa min ayaamin camalu saalix fiiha axabu ila allahi min hadi alayaam. marxaba, ma jiro camalka fadli badan oo insaan sameeye ama ilahay xaggiis loogu jecel yahay maalmahan. markaas saabta dheheen wala ljihaadu fi sabiili illah, qaala buu leeyahay wala ljihaadu fi sabiili illahi xataa ila rajulu mooye oo kharaja binafsihi wamaali falam yarjic min dalika shayun. ilaa qof naftiisii maalkiis jihaadka aaday oo asna ku dhintay ku shahiiday, maalkiis jihaad ku baabay, waxbaa kasoo laabanen. shaksigaas intaan ka ahayn intii kale camal la qabto ilahay xaggiis loogu jecel yahay maalmahan camalka loo sameeyey ma jiro. markaan waxaan anaga rabaa ama isku xasuusinaynaa ama isku buraarujinaynaa maalmahan oo 10ka ugu horeyso carafaa in sadaqada la badiyo, quraaco riska la badiyo, salaada la badiyo, soomka la badiyo. qofka awooda 9ka maalmood, maalin 10aad ciida waayaba inna soom ma banaan ciida. 9ka qofka soomi karo ilaahay subxana wataala fursad u siiyo. alxamdulilaahi quraaco riska la badiyo, lianna ana ajra camal saalix fiiha fi hadihi alayaam yatadaacafu waay maa laa yatadaacafu fi saa'iri alayaam. laab waay camalka la qabanayo, ilahay dartiis loo qabanayo, camal saalixna ah oo waafaqsan sunnada nabi alai salatu wasalaam. si cibaadada mawdici kale uga hadlayni, cibaadada waxaa shardiya in qofka ilaahay darti ay ka tahay oo sunnada nabig alai slat slam waafaqsan tahay. marka qofkii awoodo oo axad ay kowdahay bisha sida loo badan yahay bil carafa, alxamdulilaahi in 9ka maalmood oo soom qofka awoodo. qofka awoodin beri dambe oo isniinta ah, khamiista oo kale ku jirto, isniinta dambe oo bisha ay tahay gaar ahaan
hadkaa 8 maalinka sagaalaad dhegeysta marka. An Abi Qataada al-Ansaari radiyallahu anhu an Rasuulullah sallallahu alayhi wasallam su'ila an yawmi Arafa ana washatan la weydiiyey. waa maalinka bisha Arafa sagaalta ayaan kusoo celin codka kaabanaanta ku fiican yahay insha allah. maalinka bisha Arafa ay sagaal tahay waxayna ku aadan tahay caawan aan hadlayn oo axad tahay oo bisha 1 tahay axadkaa 8 siin soo socota isniinteeda kale waay qofka ilaahay gaarsiiyo. waxaa la weydiiyey alayhi salaam yowma Arafa soomkeeda faqaala nabi wuxuu yidhi yukafiru sanata almaadiya waalbaaqiya. waa xadiis muslim wariyey oo alxamdulilah saxiixnimadiis lasku haysanin. maalinka Arafa soomkeeda waxaa lagu dhaafaa sanad lasoo dhaafay iyo sanad soo socdo dembigii qofkaa sameeyey. waa fursad qaali ah. carafadeeda inaa gaarayn yaa sheegi kara yaa dhihi kara aniga waa gaara yaa dhihi kara. marka waa 12 bilood lasoo dhaafay iyo 12 bilood soo socoto soon lagu dhaafaayo. waa hal maalin ah. waa maalinka bisha Arafa 9 ay tahay. waa fursad qaali ah aan ka faa'iidaysano naftiinaba. dabcan dunuubta saqaa'irta waa kabaa'irta dhowr mar aan ka hadalnayo tawba iyo shuruudo badan ay u baahan tahay. marka soomkaasaa loo diyaar garoobo. qofkii awoodo 9 maalmood taa soom. qofkaan awoodina fursad u haysan beri axad waaya bisha 1 tahay isniinta saa dambe ah khamiista kale isniinta oo 9aadka ah. qofka intaas awoodin halka maalin 9aadka ay dhaafeen. marka naguma jiro qof dembigiisa in la dhaafo halsin lasoo dhaafay halsin soo socota aan rabin. laakiin yeelitaanka soonka nafyi shaydaan halaska qabto ilaahay idinkiis alxamdulilaahi ha loo diyaar garoobo. marka alxamdulilaahi qofkii awoodo udxiya jirto qofkii udxiyada inuu qala rabo oo ilaahay subxaana watacaala maal siiyey ama awoodo waxaa laga rabaa bisha caawa 1 ah ilaa maalinka subaxda 10aad oo neefka udxiyada ku qalayo jirkiis tinka taale iyo cijidi iyo wax ma goynayo waa lagu talagalaa. waa ashyaa oo sunno ah waay udxiyada kullina bacd ulamaa udxiyada waajib oo qabaan laakiin sida saxda ama raajixa waa sunno. ina acdaynaka alkawthar fasalli lirabbika wanxar. amarkaas wanxarka waa amar manduub waay marka maaha amar wujuub sida culimada ku fasirtay. marka udxiyadaasna qofkii awoodo sunno mu'akada waay. qofkii awoodo inuu udxiyo qalo oo ku talagashanna alxamdulilaahi laga bilaabo caawo tan jirkiis ku taala ma goynaayo cijidiis ma goynaayo saasaa sunnada ah. marka jasaakum allahu khayran aan u diyaar garowno fursadaas qaali ah. qofkii ilaahay subxana watacaala waafajiyo ayaa ka faa'iidaysanaya. dadka ku faa'iidaysana allah hanagu daro hana soo daciyo sida sheekh cabdullaahi sheegay halas cafiyo saamaxaada soo dacaynta alla bariga quraan akhriska salliga nabi calaih salaam adkaarta sadaqada hala badiyo. amaashan adcaaf mudaacaf waay. bini aadamka adduunyada aad u yaqaanaa. meeshan shaygii la geliyo badeecadii ama dhulkan maanta $500 joogs hal sano kadib waa la hubaa $10,000 goyn hadii la yiraahdo. shantaas waa inaad soo daysataa isku day haddaad haynin hadda. badeecadii faa'iido lagu sheego haddii geeska adduunka Japan taal ninkan ganacsiga keeno isku daya leannahu wuu fahamsan yahay tan laakiin nusuustu isu sheegayo waa waxay ka tahay waa malamala xaqiiqdii iimaanka naga maqan yahay. marka alxamdulilaahi xaqiiqa waaye mala ma ahan warka nabi calaih salaam qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah walilah subxana watacaala. marka qofkii fursadaas ama dembi dhaafkaas jecelow soonkaas ka faa'iidayso. waa idinku dheereeyo ralaada fajazaakum allahu khayran. wixii wanaagsan min allah wixii qalada nafsi wa min ashaydaan. asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu.